shirka bisha June haddii la diido maxaa sameynaysiin ma dagaalamaysiin waxay la tahay haddaan dagaalamayno haddaba maanan nimaaneen halkaas waxaan door bidaynaa shirkaasi inuu ka dhaco magaalada Muqdisho hadduu ka dhici waayana waxaan ku talagalaynaa meel kale oo dalka ka tirsan waana la ogyahay tabarta dawladdu ay leedahay iyo xayndaabka inta ay ka taliso meel kale oo dalka ka tirsan ayaa lagu qaban doonaa shirkaas markii Muqdisho ay suurtagali weydo maamul goboleed anaga ka nimid be dadkaan oo dhan maamul goboleedyo ka yimaadeen meel kale ma cirka laga yimid waa deegaanadeennii meesha rabnaan ku qabsan karnaayo kale hadday Muqdisho dhici weydo arrinta kale oo xukuumad cusub waa proposal waa soo jeedin loo arkay xal in xukuumadda hadda shaqaynaysa ay ku fashilantay mandate-kii dadku loo xil saaray oo ay ahayd inay dalka gaarsiiso wixii laga hadlayo dastuurka oo dhammaystiran oo afti loo qaaday dalka amnigiisa oo dalka oo dhan oo la xasiliyo doorashooyin qof iyo coda oo la gaarsiiyo dalka way ku fashilantay marka mandate-keedii way ku fashilantay waxaa la soo jeediyey qofka fashilma ama kooxda fashilanta in lagu bedelo maana dhihin annagu hal ku bedelo laakiin in lagu bedelo dad kale oo mandate-kaas waqtiga yaroo gaaban ka shaqayn kara gaarsiina kara dalka waxyaalahaas la tabayo dhan oo xukuumaddii iyo dawladdii la rabay inay ka shaqayso waxay ku fashilantay inta yartahay gobolka Banaadir oo laga shaqaynayay ayayba ku fashilantay inay amni sugto inay dhaqaalihii dalka in iskuuladii iyo isku socodkii isbitaaladii waxaa la maraa in la yiraahdo qofka dhaawaca lama qaadi karo oo aamin ambulance oo iska voluntary ah oo qaadi jirta dhaawaci in la yiraahdo lama qaadayo halkaas horta baashi ay ka rogatay marka xukuumadda hadda jirtaahay way ku fashilantay mandate-kaas ra'iisul wasaaruhu hogaamiyo waxaana dadka lagu xushay waxaa la yiri xasilooni dalku ku jiro laakiin afar qof oo heshiisa waxba tari mayso dalka macna uma fadhido madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu way salaamaan way isku qoslaan wasiiradu ra'iisul wasaaraha ay u nacamleeyaan wax ay dalka macna u leedahay iyo faa'iido u leedahay ma jirto wax dalka faa'iido u leh waxa weeye service-kii dawladda looga baahnaa ma la qabtaa amnigii la rabay dalka waxyaalihii ajandihii siyaasiga ahaa ee waaweynaa oo dastuurkii iyo electionkii ma laga shaqaynayaa ma lagu aamini karaa dadka hadda jira marka taasaa keentay proposalkaas in la soo jeediyo waxaan loo soo jeedinayo waxa weeye madaxweynaha weeye hadda waxay la tahay xukuumadda asaga unbaa bedeli kara madaxweynaha proposalkaas loo soo jeediyo talo waa shalay waa kii yiri talahan la siiyo talo waa in la siiyaa shalay uu ku dhawaaqay mar walba waa la dhaliilaahay yiri talaha la siiyo taladii uu fiicneed maanta waa u malaynaysaa inay halkan ka soo baxdo dhaliil tiro badan xitaa aan loo jeedin laakiin talooyin wax ku oola oo dad odayaal ah professor oo wasiirre iyo xilal waaweyn dalkan ka soo qabtay hadda xisbiga hogaaminaya dalka u naxaya inay talooyinkaas hadda madaxweynaha siinayaan hadduu madaxweynuhu marka talo u bukay taladii waa tan maanta waa loo hayaa waxaan rajaynaynaa inuu u dhaga nuglaan doono haddii la yiraahdo ama santiin